ورحمة الله تعالى وبركاته. ودرسي حضارة إسلامك المحبنة إسلامك أو طلقني دائرتين أنا كبرتان إسلامك قيمة أدونك أكسو كردية يا مسلمين تو إن أي أدونك ويل إما ضحك أهايان عزاد إيجا عن تصر إلى هايان أو محيه تمد صدحي تما قرني أدونك أي كتلينايين مرك إسلام كل رقمايين لكن ما أنت طلب روضي كبحضي بقولك سنة دماتي حضارة دي علمينا اللي قالوا ريجي ilaa maantana ay kasoo kabsan layihiin gumaysigii iyo dhibaatada uga tagay marka xadaarada islaamka waa kaadan carabta sida maxay ahayd ay ahaayeen oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo u bedelay oo dad maxay ahayd qabiis oo dhaqameedka u tariyo xoolo dhaqato ah ganacsigana ku fiican ganacsado safarka shaam iyo u kala xiriiro dawladaha u kala xiriiriyo marka xagee marka xadaaradan islaamka sidee ku imaaday waxay ku imaanka islaamku wuxuu badbaadiyay ummadii adduunka waqtiga jiro dhan oo dagaalo fara badan laba dawladood duqduqoobay oo gaboobay yaa islaamkan ku soo bilaabanayay hareeraha kaga dhaganaa jasiirada carabiya dawladdu waxay ka talinaysaa dhanka bariga waa dawladul furus oo Persian Iraq Iran ilaa Aasiya dhexe ayay ka talinaysay dawladdu waxay ka talinaysaa dhanka galbeedka oo dawlad Kristiyaana oo dawlad Romaaniya ayadana laba usii kala jabneed mid caasimadeeda Katoliga Rome ahayd midna caasimadeeda Istanbul Constantinople waxay ahayd Orthodox marka labada dawladba islaamka meesha uu ka saaray marka muslimiinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku carabta bedelay manhajka islaamka u dhiibay dagaalkii faraha badnaa dhexdooda yaal Madiina oo nabiga u yimid 110 sano dagaal ka socday oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam islaaxiyay oo hal qoys uu ka dhigay ansaar haddana uu sii mideeyay dadkii soo qaxay ee Madiina Makka ka soo qaxay Madiina yimid asxaab rasuulillah ayagaasa wax bedelay marka ayagaasa wax bedelay waxa la sheegaa 80% saxaabada waxay ku dhinteen kharij al-jasiira al-arabiya macna Makki Madiina waa ka baxeen way ka baxeen dhulka islaamkay qaadeen oo xambaareen qaar Ciraaq ku dhintay qaar Shaam ku dhintay qaar Masar ku dhintay qaar Waqooyi Afrika qaar Aasiya dhexe ilaa xuduud India iyo saxaabadu gaareen ilaa xuduud Andalus marka 80% saxaabada jasiirada Carabiya meeshii ka soo jeeday meel ka duwan leeyan amaanada nabiga uga tagay balliqo canni walaw aaya dhahay iga gaarsiiyay dadka hal aayadna Allah ka dhigay taasay ka duulayeen oo qof kasto muslima oo Ilaahay diin ku maneystay inuu dadka gaarsiiyo waa waajib oo Ilaahay ugu dhawaanayo oo laga dhaxlo hada daalanka nabiga balliqo canni walaw aaya hal aayadna Allah ka dhigay aniga iga gaarsiiyay marka taas keenta marka ku xambaartay inay xambaaraan islaamka ummadaha kale iyo shucuubta kale eegayaan marka al-futuuhaat al-islaamiyya ya kaalin ka ahayd xadaarada inay istaagto marka carabtu xadaarad ma aysan haysan waxay dawlad ahaan waxay hoos joogeen maamul ahaan dhanka Shaam carabtii deganeed waxay hoos joogeen dawlad Romaaniya oo gumaysan jirtay cashuurna ka qaadi jirtay dhabala xagga Yemen iyo dhankan kale Ciraaqna waxay carabtii deganeed waxay gumaysan jiray Furuska marka intooda kalena xoolo dhaqatay ahaayeen oo dhaqameedka ma ya madax u ahaa marka wuxuu ka saaray marka dawladnimadi ay ummadaha kale hoos joogeen maxay ahayd ay maganta u ahaayeen iyo saag wuxuu ka dhigay dad ummadaha kale ayaga hogaamiyo iyo ka dhigay huma arsalnaaka ilaa rahmatan lil caalamiin marka xadaaradaas quruxda badan intee ka imaada marka sidee ku istaagtiyaas istaajiyay mustamida min alkitaab wa sunnah quraanka ka imaada saxaabada hal saxaabi oo buug siyaasadeed aqriyo ma jiro hal saxaabi oo buug ciidan bartay aqriyo ma jiro hal saxaasiyad oo buug dhaqaale aqriyo ma jiro kulligood quraanka bas iyo sunnada xambaarsanayeen iyo waxay nabiga ka arkeen calayhi salaatu wasalaam siyaasadda nabiga maamulkii nabiga xagga dhaqaalaha xagga sakada xagga maxay ahayd cilmiga xagga quraanka maxay ahayd baristiisa xagga hogaaminta dagaalka kulli waxay nabiga ka arkeen iyo ayana ku dhaqmeen taasa keenta marka si sariica inuu islaamku ku fakado oo ummadaha kale uu ku gaaro konton sano ka yar inuu islaamka xuduudda Paris dhanka galbeedka ka gaaray ilaa xuduudda India ilaa China uu gaaray marka xadaaradaas marka waxa asal u ah al-Qur'aan wa sunnah ayaa asal u ah iyo shucuubtii aan carabta ahayn ilbaxa ahayd oo islaamka soo gashay shucuubtii ayagaas marka xadaarada bilaabay gaar ahaan shacabka Furuska ah oo dhanka Ciraaq iyo Persianka ah dhammaan dhulkii dawladda Farisiya ka talinaysay muslimiinta la wareegay halka dawladda Romaaniya dhulkii ka talinaysay qayb islaamka uu la wareegay qaybtii kale ay ku hareen مثلا dawladda Romaaniya maysan wada dhicin kulligeed oo macnaha caasimadii lagama qabsanin oo muslimiintu waxay ka saareen Shaam waxay ka saareen Masar waxay ka saareen Waqooyiga Afrika waxay ka saareen Andalus saddexdaas dhul ka kala afartaas dhul kala wareegeen laakiin dawladdu waxay ku sikatay Yurub inteeda kale inta ilaa Talyaaniga xagga Turkiyana Istanbul marka laakiin dhul badan ay weysay dhul badan ay ka talinayeen 6 qarni ya islaamka la wareegay dadka dhulkaas marka dadkii loogu tagay dad ilbaxay ahaayeen dawladda maxay tahay maamulayaan marka dadkaasaana fududeeyay in dawladahan laga iska kiciyaan oo muddada badan oo maxay tahay islaamku maxay u soo baxay hatta qofka markuu qofka dhinto lacag janaaso ah laga qaadi jiray ilaa qofka ma duuli karo ilaa lacag dawladda oo siiso marka dulinimadaas iyo duruuftaas ayuu ku jira marka futuuhaadka markay imaadeen oo muslimiinta ay dhulka soo galeen oo ciidanka islaamiga dhulka soo galay
waxaa ka dhalatay markaa qofka inaan xoolihiisa laga taabanin oo xoolihiisa dowladda u ilaalinayso kaliya faqad sanadkii hal mar saka ay ku waajibayso taasaa marka dadka u fududeysa inay ciidanka muslimiinta ay soo dhoweeyaan ayagaana xadaarada sameeyey marka islaamka xadaaradiis markaan alkitaab wasunna markay tahay waxaa kaleento alistifaada min axadaaraati saabiqa in laga faa'iideysto xadaaradii waxaa jiray xadaara yunaaniya greek xadaara romaniya romaniska xadaaradiisii waxaa jira xadaara alfarisiya xadaara alhindiya hindiga xadaara siiniya chineska waxaasoo dhan maxay hayto waa ka maxaa u daliila rasuulka sal allahu alayhi wasalam markuu maxay hayto loo sheega madiino imaaday yaa rasuul aadaanka fikir saxaabiyu ku imaaday dagaalka markuu galaya maxay hayto halkaan fariisan halkaan deg saxaabada wa amruhum shuuraa baynahum gabadhihii kasoo laabtay dhulka xabashida asmaa bintu cumays in hedan jeclaha yaa rasuulallah boqorada xabashida markay hadlayaan waxay isticmaalaan bahal jaranjar saddex maxay ahayd leh oo ku istaago si dad qofka dadka dhan u wada arkaan halkaas waxaa ka dhalatay mimbarka in la sameeyo waa xadaaraatu saabiqa waa xadaara alxabashiya maxay ahayd yaa rasuulallah warqadaha markuu diraayo dowladaha u kala diraayo Rome iyo Masar u kala diraayo boqoradaas warqad aan tiimbara saarnayn stamp aan saarnayn ma qaataan waxaa la sameeyay tiimbar maxamed rasuulullah ay ku qoran tahay warqad kasta halkaas marka rasuulka xataa lafsuhu wuu ka faa'iideystay xadaaradii ummadaha kale muusan diidin fikir kastoo loo soo bandhigo uu aqbali jiray fikir kastoo loo soo bandhigo waa janaasada yaa rasuulallah waxaa jirta sariir yar oo qofka meydka lagu qaado oo xabashida isticmaalaan dadkii xabashida ka imaada usoo sheegay oo hijri xabashida aada madiina kusoo laabtay xadaaradaas afkaartaas iyagaa keenay rasuul marka carabta waxay bartay dadka marka hore qofka markuu dhinto maraa lagu duduubaya karfanaa lagu duduubaya darinaa lagu duubaya afarna garbaha ku kala qabanaysa qofka saasaa loo duugi jiray laakiin naxashka sariirta qofka lagu qaado fikir gabar xabashi maxay ahayd dadkii saxaabadii maxay ahayd janaasada saxaabadii hijrada u hijrooday yaa keenay marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ka faa'iideystay Umar Abu Bakar islaamku asaga badana bixiyay Abu Bakar 11 caam uu diray oo Shaam u diray oo Ciraaq u diray oo muslimiinta marka Umar waqtigiisa markii la soo gaaray dhammaan dowladda Farisiya caasimadeedii dhacday Sacd ibn Waqaas uu galay marka uu maxay ahayd